iyaguna sidoo kaleeto haddii dhib soo gaaro in la kaalmeeyo oo laga caawiyo oo wax lala bixiyo, saasaa lagu heshiiyey. sidaa markii lagu heshiiyey ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa u imaaday qolyo carab ah oo waddanka Najdi la yiraahdo Madiina ka agagaarka u dhow deganaa oo reer miyi ahaa oo reer Qusay iyo la oran jiray dhowr qabiil oo waxa weeyaan carabtii laga deganay reer miyiga ahaa bay ahaayeen. waxay yiraahdeen nabi maxamedow waan ku rumaynaynaa annagu diintaadana waan qaadanaynaa inay marka asxaab laayeen shir qoolan bay rabeen waxaadna siisaa bay dhahay asxaab qur'aankana soo bartay dad qur'aanka yaqaana oo qur'aankana soo bara nasiib ayay yiraahdeen. nabigu sallallahu alayhi wasallam arrintii wuu ka aqbalay, wuxuu yiri rag qur'aanka idin soo bara oo wanaagsan oo macallimiin ah oo ahlu diin oo wanaagsan ayaa idinku daraya. wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u saaray niman asxaabtii kamid ah xufaad ah oo maaragtay ayagu 30 bay'adsadeen 70 nin gaaray oo xufaad kulligood oo ragii asxaabta xulka ka ahaa quraa'ada hada quraanka wada xifdisana. waxay markaa sameeyeen nimankii way kaxeeyeen markii meesha ay deganaayeen ay la tageen inta isugu yeerteen bay nimankii oo dhan laayeen hufay ka dhigeen asxaabta oo xufaada ah kulligood baaba waxay yiraahdeen intaan hadii maanta aadishaan diinta islaamka wax ka baaqi noqon ma wada maantay intaan 70 xufaad maanta dishaan khalaas waad guulaysateen bay is yiraahdeen. nimankii marka birtay ka asleen baabaha bay ka dhigeen way laayeen. markii ay nimankii laayeen oo meel waxay ku dileen yiraahdo bi'rul mauna ayay ku laayeen 70 waa dilay. 70 waxa ka fakaday hal nin ninka waxa la oran jiray Amr ibn Umayya al-Damri baa la oran jiray. ninkaas ka baxsado cararay 69 kale dilay. asagoo ninkii cararayo oo soo socdo Madiina u soo socda ayuu laba nin oo qabiilada reer Bani Aamir ka tirsan oo meel joogto u imaaday wuxuu isaga qaatay kuwii asxaabta laayay oo khiyaanay inay yihiin. labadii nin baa isagoo dilay mar labadii uu soo maray ma koow ka siyaasan uu soo cararay Madiina soo gaaray. haddii uu qofku qolo dambi gashan qolo kala sharciyan laguma qaadi karo wala taziru waziratu wizra ukhra nabiguna kuma qaadi jirin. qoladii marka ninkii bay soo raaceen Madiina imaadeen nabiga way u imaadeen waxay yiraahdeen rasuulka ilaahayow in asxaabtada kamid ah ayaana soo maray laba nin buu naga dilay annaguna nimankii balantii ka baxay oo idin khiyaanay oo dadkii muslimiinta ahaa ee asxaabta ahaa oo xufaada ahaa laayay manihin kulamana dagaalsanin. waxaan marka rabnaa labadan indiyadooda inaad nasiisaan. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bal insha Allah isuga buu yiri wuxuu la tashaday asxaabtii xaalay nimanka magtooda aan siino labadoodii nin waxaan u tagaynaa balay marka reer Bani Nadir oo meel Madiina u jirta 3 mayl degan oo niman ganacsata ahaa yahuud waligood ganacsiga way ku horeeyeen niman ilbaxay ahaayeen adduunyada aad u yaqaani yaclamuna daahir min hayati dunya wa yana daahir hayata nolosha aad buu yaqaanani. nimanka ayaa wuxuu yiri nabigu aynu la kaalmaysan in la bixiyaan asxaabta iska masaakiin oo fuqaraan waxba haysan bay ahayd. qoladii markii nabigu u tagay oo aaday isagoo arrintii u bandhigayo wuxuu yiri waxaan doonaynaa inaad nala bixisaan labadan indiyadood. waayahay bay dhaheen sug. nabiga meel buu fadhiyay meesha iyagoo isagoo fadhiya ayay waxay yiraahdeen guri meel hooskiisa ay ahayd intay hoos wada hadleen nin khiyaano badan waxay yiraahdeen ninkan jaaniska u fiicnaa baan maanta haysanaa guriga korkiisa inta rag fuulaan dhagax weyn soo qadan madaxa looga dhuftay dhaadinta lagu soo rid inta ku xisaab la iska weerdiin karaa. gurigii bay markaa dhagaxii soo saareen gooray dhagaxii gurigii soo saarayaan oo ay rabaan inay nabiga fadhiyo ku habiyaan dhagaxii oo saa nabigu ku dhinto ilaa wacdo ilaahay yaa nabiga waxay ahaan loo sheego waxa la yiri iska jiray wax ku soo socday. nabigu si degdeg u kacay wuu baxay dhagaxii in lagu dhufto mayna suura gelin Madiina ku noqday asxaabtii wala tashaday nimankaas wuxuu yiri khaa'iniin way ilaahay rasuulkiisa way khiyaaneen amaankiina way ka baxeen aan iska celin nabiga. dagaal baa markaa nimankii lagu soo qaaday
meesha ay tagayeen marka dhufaysyo adag bay dhufaysadii bay sii adkeeyeen albaabadii bay xirteen meeshii oo dhanba waxay ka dhigeen meel jiq oo aan la soo geli karin wa meesha alla subxaana wa tacaala leeyahay wadannuu annahum maanicatuhum xusuunuhum waxay isu malaynayaan inay xusuuntooda iyo dhufaysyada ay ku jiraan ay ka mancinayaan min allahi min cadaabillahi ciqaabka alle iyo cadaabka alle inay ka mancinayaan ay ka difaacayaan bay u qaban dhufaysyo adag bay galeen asxaabtii way imaadeen waxay marka sameeyeen meeshii baa lagu go-doomiyey dhinacyadaa laga fadhiistay sidii labada dhinac looga fadhiyey meel ay ka baxaan baa loo diiday markii ay 3 beri meeshii ku xaraysnaayeen oo ay kasoo bixi waayeen albaabadiina asxaabtu ay qaar dundumiyeen oo meesha la yukhribuuna buyuutahum biaydihim wa aydi almu'miniin oo albaabadiina qaar ay arkeen in la furfuray inta la soo qoday go-doon ayay meel u bixi karin ayay dheheen musaalaxiyo heshiis baan rabnaa ayaa waa la wada hadlay ayaga asxaabtii iyo nabiga sal ly slam waxaa lagu wada hadlay marka wax alla waxa awrtoodu ay qaado gaadiidka ay wataan waxa ay u qaadaan intay meesha ka rardaan ayaguna wad qaba inay guuraan saasa aan lala dilin amaana la siiyo ayagoo khiyaanada sameeyay haddana waxaa la yidhi wixiina rarta intaad qaadan kartaan baxaad yidhi markaasay waxay sameeyeen awrtoodii iyo fardoodii waxay qaadeen bay rarteen guryihii maaragtay wixii alaabu taallay guryahoodii albaabadoodii qaarkood wixii wanaagsan oo marka ay islahaayeen way anfacayaan ay qaadan karin ayay qaateen xoolo badan iyo hanti badanna meeshay kaga tagay oo aad u tira badan meel waxay ahayd maaragtay ay hanti badan u taallay ahayd saasay marka nimankii meeshii uga guureen marka guryahooday kharaabinayaan oo waxay ku kharaabinahayaan gacmahooda waxaa weeyaan baa layidhi waxay ayagiibaa duminayeen intii fiicnay gur walba kala baxayo asxaabtuna waxa weeyaan dhufaysadii bay soo dumiyeen oo maaragtay iyaga inay usoo dhacaan bay rabeen intii dambe oo alaabtii ay ka tageenna waa laga qaatay oo maaragtay way inoo imaan doontaa oo wixii meesha ay uga tageen oo dhan muslimiinta ayaa la wareegay saasay marka ay qisadu ay ahayd ay ku imaatay oo ay aayaddan sabab nuzuulkeeda iyo macnaheedu uu ahaa way marka baqeen oo iyagoo xataa dagaalami karay cabsadeen oo waa niman maaragtay waxa weya nafta alyahuudu markaasay waxay yidhaahdeen rucba waa qalbigoodii ku dhacay guryahoodii bay dumiyeen wixii ay qaadan kareen bay ka qaateen wayna isaga baxeen saasaa marka allah subxana wataala ayadan kaga hadlaya qaala tacala allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi huwa alle alladii allah weeye akhraja bixiyey aladiina kuwiibu alla bixiye kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ahlilkitaabka ahaa